waan u soo laaban doonaa ciyaartii hadaayata socotay marka deesna wax yar sidaas iigu jira xagga waxaan jecelnahay balan eegno ciyaaraha Soomaalida magaalada Hargeysa waxa meel xalad leh maraya horyaalka Somaliland wariye Cabdirasaaq Binde oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa goor dhaweyto warbixintan soo diray kuna eegaya natiijooyinkii ugu dambeeyay ee koobka horyaalada ee Somaliland moolida horyaalka Somaliland ee kubadda cagta ee kooxaha heerka koobaad ayaa maraya meel xiisa badan iyadoo lagu guda jiro wajigii labaad dhawaanna waxa soo ilaalay toddobaadkii 14aad waxa kaliya ka kaarsan horyaalka inuu soo gabagabeysmo 4 isbuuc oo kaliya kulamo xiisa badan baa dhacay haddaan dul maro natiijooyinka kala helay toddobaadkii 14aad kooxda wasaaradda maaliyadda ee ganacsigu barbardhacay isku dul dhaceen 2-2 kulankii labaadna xidigaha cirka ee gaashaan eber kulankii saddexaadna ciidanka asluubta ee kooxda dawladda hoose 1-1 kooxda ciidanka asluubtina dhawaan waxa iscasilay tababarihii kooxda leelinay Cabdiriyaad Abshir Cabdi waxaana si ku meel gaar xilka u qabtay Mustafa Khamle oo hore u ahaa kabtanka kooxda ciidanka asluubta kulankii afraadna waa kulankii u dhaxay kooxda Goodir iyo kooxda wasaaradda horumarinta biyaha 4-1 ay guush ku raacday kooxda Goodir kulankii lagu soo gabagabeeyay toddobaadkii 14aadna waa kulankii u dhaxeeyay kooxda Waaxool iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka Waaxool ayaa 1-1 ku badisay waxa xusid mudan kooxda Waaxool bilaabashadii horyaalka bishii Febraayo ilaa imika inta lagu jiro bisha August waxa ay marsanayeen khadka cas waana markii ugu horeysay ay ka baxaan xariijinta khadka cas iyagoo imika ku jira kaalinta 8aad waxaanay leeyihiin 14 dhibcood haddaan eegno jadwalka kala sareynta kooxaha heerka koobaad ee caasimadda Hargeysa kooxda imika horyaalka kaalinta koobaad ku haysa waa kooxda Goodir oo 35 dhibcood leh kaalinta labaadna waxa fadhida kooxda dawladda hoose 28 dhibcood ay leedahay kaalinta saddexaad waa kooxda Gaashaan 24 dhibcood kaalinta afraadna waa kooxda Maaliyadda dhammaan mucashaqiinta kubadda cagta Somaliland oo dhan waxay isweydiinayaan sanadkan yaa ku guuleysan kara horyaalka iyadoo labada kooxood imika ugu cadcad ay yihiin kooxda dawladda hoose iyo kooxda Goodir yaa imika ka badbaadi doona kooxaha heerka labaad inay ka mid noqdaan iyadoo kooxaha intooda ugu badan ee 5 kooxood ee ugu hooseeya ay cagta ay isku hayaan dhanka dhibcaha marka la eego aad buu mahadsan yahay wariye Cabdirasaaq Binde oo magaalada Hargeysa warbixintaasi inooga soo diray dhinaca kale kooxdan Waaxool oo hadda Cabdirasaaq uu ka sheekeynayay ayaa ka soo baxday qadka caasi horyaalka looga baxo waxaynu wareysanay maamulaha kooxdaasi ama tababaraha kooxdaasi Maxamuud Cabdi Xasan Koofinde waxaana uu inooga warramay dareenkiisa ku aadan in markii ugu horeysay ay ka soo baxeen qadka caas bismillahir rahmaanir rahiim mawlid aad baa ku salaamaya adiga iyo BBC barnaamijkan gaar ahaan ciyaaraha runtii teamkan wasaaradda xanaanada xoolaha loo yaqaano Waaxool waa markii koobaad intii horyaalku bilaabmay ee casaanka ka soo baxaan ay yimaadaan kaalmaha 8aad iyadoo kaalinta 7aadna gool different uu jiro oo laga hayo kaalinta 6aad iyo 5aadna dhibic yar oo la dhibcood laga sareeyo horyaalkiina ay ka dhiman tahay 4 ciyaarood runtii teamka Waaxool waa team markii horeba aan muddo 2 bilood imika gacanta ku hayay maamulkeeda tababaranimo dhawaan la magacaabay iyadoo qaybtii labaad horyaalkan kooxda la bilowday runtii ilaahay waxaan uga rajeynayaa teamka ciyaaraha hadhayna 4 kulana inaan guuleysano dadaalkii ciyaartooydan haysano tayadooda waarignimada aanu leenahay kooxaha naga soo horjeeda iyo tayada ciyaartooydan haysano waxaan rajeynayaa insha Allah inaanu horyaalka ku dhameysan doono kaalintan imika joogno kaalin ka sii sareysa 4 kulan ee noo hadhayna waxaan rajeynayaa insha Allah inaanu 4 guuleysano hadii la yiraahdo qorshaygu sidaas yahay hadii la yiraahdo oo kulan kasta wuxuu leeyahay kulan final aad iyo aad baa runtii barnaamijka BBC nagu mahadnaqayaa sida fiican inoo soo xiriireen kulankan maanta aan ka guuleysanay wasaaradda caafimaadka oo kulankii 14aad ahaana runtii anaga ciyaar xamaasad gaar ah noolaba ahayd oo runtii inaan dhibcahaas helana muhiim bay ahayd aad buu mahadsan yahay tababaraha kooxda Waaxool oo inoo warramayay magaciisu waa Maxamuud Cabdi Xasan Koofinde hagaag